ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa mid ka mid ah qoraayadii Faransiiska. Ma dhaqaaqo mana hadlo, laakiin wuxuu qoray riwaayad isagoo indhihiisa libaqaya, taasoo noqotay iibkii ugu iibsiga badnaa Yurub. Sidee qof curyaan ah oo aan dhaqaaqi karin ama hadli karin u noqon karaa qoraa caan ah, uuna u qori karaa sheeko malaayiin nuqul ah? La soco muuqaalkeena. Jane Dominique Bowlby wuxuu dhashay 1952 wuxuuna geeriyooday 1997. Wuxuu ahaa qoraa iyo suxufi Faransiis ah, wuxuuna ahaa nin caan ah oona tafaftiro u ahaa majalada loo yaqaan Elle France Fashion. Markii ay taariikhdu ahayd 1995 waxaana ku dhacay stroke dhanka maskaxda ah, kaasoo gabi ahaanba ka dhigay complete paralysis marka laga reebo ishiisa bidix, mana uusan awoodin inuu hadlo. Wuxuu qoray buug ka kooban 150 bog isagoo dhaqaajinaya baalka ishiisa bidix. Tafaftiro waxaa u ahaa gabar waxay u isticmaali jirtay liis ay ku qori jirtay dhammaan xarfaha alifbeetada si ay isu xigaan, si ay u hesho xarafka ay tilmaamayaan baalasha indhihiisa. Waxayna ku qaadanaysay 6 saacadood maalintii diiwaangelinta keliya bog barkiis. Qisadiisana waxaa laga sameeyey filin 2007 kaasoo muuqday shaneemooyinka, wuxuuna ku guuleystay abaalmarinta filinka ugu wanaagsan sanadkaas ee la soo saaray. Kuwa raba ama dadka doonaya in ay akhristaan sheekadan waxaa loo yaqaanaa The Divine Bile and the Butterfly, waana sheeko lagu qoray baalka isha bidix. Ha qiranin guuldaradaada haddii aadan isku dayin iskudaygii ugu dambeeyey, hana joojinin iskudaygii ugu dambeeyey haddii lagaa guulaysto mooye. Hana quusan si kastoo duruufaha adagi kuu hareeyaan. Ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay.